SSC waxaan u rajaynayaa iyagoo mid ah oo midaysan oo aragti mid ah leh inay walaalahood Puntland oo garabka ku haya ay noqdaan dad wada nool oo maamul qura leh oo ku wada tanaada hadii ilaahayno Soomaalina ay wada baadi koobaan ninkii dani waxa uu yiri dhul bahantay marka ay mid soo noqdaan marka ay laba noqon waayeen mid soo noqdaan ayaan waxa weeye anigu aan wax la qabanayaan oo maamul la dhisanaya heel harti bay ugu yimaadeen laakiin uguma imanay heel siyaasadeed bay ugu yimaadeen sababtoo ah Puntland waxay doonayaan inay ka taliyaan iyagu laascaanood halka maamulka yare taagta dareena Puntland waxay cadaysteen oo ina afka ka dhowrin in dhul bahante iyagu u taliyaan bay doonayaan dhul bahante shacabkiisina waxa loo qixiyay idinku maamul gaar ah dhista heel hartiba idinku nimid laakiin taas way beenowday maanta ayaynu arkanaa in heel siyaasadeed waxan uu ku jiray runtii waa wax laga xumaado in 7 nin oo jaamac siyaada inuu qudha ka jaro oo dagaalamayo lagu yiri oo la qaldo laascaanood xoreeya oo ciidamada majeerteen ay qaldeen in lagu yiraahdo oo ma garanaysaa jaamac siyaadu magaalada inibay isa ku soo duulay ee iska xoreeya marka dambana inay yaro gara jaamac garaad cali uu dhalay madaxa uu ka wada toogto 8 nin kiisaaka marka laga reebo 7 hore kiisaaka marka ugu darno waa 8 daaba waxa diay wiilka yar ee uu dhalay garaad jaamac garaad cali waa ayaan daro 8 nin oo jaamac siyaada inay hal meel ku wada dhitaan uu dilaa ninka garaad jaamac garaad cali waa adeerka uu yahay garaad jaamac garaad cali gala dagaalkiisu waxa ugu daray in yaro uu adeer u yahay حبط بو إنمدي جامع سيادة بدو قبت دو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برتنا دقلا سعوتين وبرتني إنه فيسبوك بيتش كلهين صدق له وبرتني إنه يوتيوب كلهين فضلا ما أنت واحد ذي كعد سنة هداد رئيسو مال لانتهين إن أنت اليوتيوب كي تكتين إن سبسكرايب سو سرتين أنت هالكن يجلا سعوتها أنت هراء إلى سعوتين آدي أدبروا مهد عليا وعد سجى كواد يعني دين صادر صدق أنت إنه برتاك كل مني أما أنت هذا هالك داون سين آدي بدو mahadsan tahay waxaan u maleynayaa oo filayaa inaad hadda dhaqaaqday oo soo saartay YouTube channel-kayga subscribe aad iyo aad baad mahadsan tahay muuqaalada saxda ah waxaan soo gelin doonaa imika hadii Ilaahay ka dhigo YouTube-kayga soo gelin doonaa Cabdixakiin Dhaya ku qoran ama Dhaya Media dad ku qortay sidoo kale uu ku soo baxaya hadaba caaw waxa idiisiga xoogo dhameystiranaya idiisida huwatii gudaheedii baynu caaw dhex galanaa iyo Saciid Dani balaada balaayada magaca adag leh Saciid calo baynu dhex galanaa sidoo kale shacabka Puntland waxay ka aaminsan yihiin qadiyada ma garanaysaa laascaanood ay doonayaan inay ismaamul noqda sidoo kale iyo Saciid Dani oo isaguna ma garanaysaayay ku gacan sayray in maamul ay dhistaan Puntland ay maamul ay dhistaan dhul bahante sidoo kale gabadha la yiraahdo Fahiimo Quuje ayaa iyaduna hore u sii sheegtay inuu Dani uuna ogolayn inay dhul bahante ay yeeshaan ismaamul taasi taaway waxa ka daba geenaya sidoo kale nin uu garaad jaamac garaad cali uu u yahay adeer ruba uu yahay oo walaalkii uu dhalay oo halka 7 bilood ama 8 bilood dagaalku ka socday magaalada Laascaanood 7 nin buu ku dilay saaka ayaa la qisaasay ninka waxa la yiraahdaa in Cabdi Dheera la yiraahdaa waxa weeye waxa ay sheegeen oo afkooda ka qiranayaan in ninka uu dad badan laayay qoraalka adarkiisiin ama waxa adarkiisiin waxa weeye waa qoraal ay sameeyeen qolada huwanta halka ku sugan waxay yiraahdeen ninkaasi Cabdi Dheera maxaa yiraahdaa garaad jaamac garaad cali ayaa adeer u ah markasta ciidanka ma garanaysaa heel harti dhabarka ayuu ka toogan jiray runtii waa wax laga xumaado in 7 nin oo jaamac siyaada inuu qudha ka jaro oo dagaalamayo lagu yiri oo la qaldo laascaanood xoreeya oo ciidamada majeerteen ay qaldeen in lagu yiraahdo oo ma garanaysaa jaamac siyaadu magaalada inibay isa ku soo duulay ee iska xoreeya marka dambana inay yaro gara jaamac garaad cali uu dhalay madaxa uu ka wada toogto 8 nin kiisaaka marka laga reebo 7 hore kiisaaka marka ugu darno waa 8 daaba waxa diay wiilka yar ee uu dhalay garaad jaamac garaad cali waa ayaan daro 8 nin oo jaamac siyaada inay hal meel ku wada dhitaan uu dilaa ninka garaad jaamac garaad cali waa adeerka uu yahay taasi taaway muuqaalkan saaxiibada la wadaag muuqaalkan waa muuqaal muhiim ah muuqaalkan sidoo kale like saar cadawga Somaliland waxaanu tusanaa inaynu halka ma garanaysaay oo ayna ma garanaysaay isaaq ayna wax kale ayna ku haysan oo deegaankooda lagu haysan dhulkooda aan lagu haysan balse iyagu ay garan waayeen in nabadii ma garanaysaay ay ku naaloonayeen shacabka Laascaanood
garaad jaamac garaad cali gela dagaalkiisu waxa ugu daray inan yaro uu adeer u yahay oo kamida dadkii markii ugu horeysay dhaqdhaqaaqa laascaanood uu kacay kamid aha ka yarna BKM-na kaarisita weey waa ina ka yar ee magaranaysa dhaqdhaqaaqii laascaanood ugu horeeyay markii uu bilaamay BKM ka qaatay markii dabana ay Soomaaliland ay dagaal la galeen ama ciidamada qaranka dagaal la galeen xabad buu inamadii jaamacsiyad dabada u qabtay daw wallahi waa ayaan daro waxa weey shacabkii jaamacsiyad waan magaranaysaa 8 nin maanta li xaqiijiyay ee xogtooda dhameystiran leysiyay waan magaranaysaa waan ka tacsiyeedinaya waxaan leeyahay dhulbahantow dad wax wada leebaynu hayn dad isku deegaana baynu hayn magaranaysaa dad wax wada leebaynu hayn soo noqda oo toobad keena oo garaad jaamac garaad Ismaaciil nabad ku dhawaaqday taa laftigeedu waxa idii haya muuqaal kale uu leeyahay magaranaysaa odaygii dani calool uu leeyahay dhulbahante iyaga dhexdoodu ha soo heshiyaan yaa soo heshiinaya cid soo heshiinaysa waa garaad jaamac garaad cali iyo garaad jaamac garaad Ismaaciil labada bal marka hore muuqaalka ayaa idii kala baxaya way tusaya bal waa kan leeg SSC waxaan u rajaynayaa iyagoo mid ah oo midaysan oo aragti mid ah leh inay walaalahood Puntland oo garabka ku haya ay noqdaan dad wada nool oo maamul qura leh oo ku wada tanaada hadii ilaahayno Soomaalina ay wada baadi goobaan marka waxaan rajaynayaa in dab loo wada hadlo oo wixii laga badin waayo oo la isugu qacloolfiyo yahay go'aan lagu gaaro kadibna lagu xisaabtamo cidii markaa diidana waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto Puntland waxay diyaar u tahay dadka ugu horeeya ee waxa heshiiska lagu yahay dhowri door inay tahay sidii haddaba u dhowrto ninkii dani waxa uu yiri dhulbahantay marka ay mid soo noqdaan marka ay laba noqon waayeen mid soo noqdaan ayaan waxa weeye anigu aan wax la qabanayaan oo maamul la dhisanaya haddaba dhulbahantay miyay ogol yihiin Puntland inay wax la dhistaan heel hartibay ugu yimaadeen laakiin uguma imanay heel siyaasadeed bay ugu yimaadeen sababtoo ah Puntland waxay doonayaan inay ka taliyaan iyagu laascaanood dhulbahantana iyagu waxay doonayaan in magaranaysaa dhulbahantana inay maamul gaar yeeshaan waka garaad jaamac garaad cali ninka la yiraahdo waa ninkii Soomaaliland 15 sano ka maqnaa waa ninkii Soomaaliland 15 sano ka maqnaa 15 sano ka maqnaado waxa uga maqnaa inuu isagu Puntland ku biiro waliba maamul gaar ma rabo dhulbahanta lama rabo balse waxa uu doonayaa in magaranaysaa uu Puntland ku biiro garaad jaamac garaad Ismaaciil ninka la yiraahdo jaamac siyaadna waxa uu doonayaa isaguna in magaranaysaa uu Soomaaliland uu ku biiro hadii ay ka fursan weydeen inay maamul gaar yeeshaan haddaba ragga majeerteen la yiraahdo ama ragga la yiraahdo halka maamulka yare taagta reena Puntland waxay cadaysteen oo ina afka ka dhowrin in dhulbahante iyagu u taliyaan bay doonayaan dhulbahante shacabkiisina waxa loo qixiyay idinku maamul gaar dhista heel hartiba idinku nimid laakiin taas way beenowday maanta ayaynu arkanaa in heel siyaasadeed waxan uu ku jiray Saciidani markan uu hadlayo waxa weey waa qodbadii xalay uu ka jeediyay 25 guuradii ee maamulka Puntland taasna waa ayaan daro u soo hoyatay shacabkii laascaanood waxaynu ka hadlanaa gabadha Fahimo Quuje waa dadkii ololihii shacabkii kicinta maalintii ugu horeysay ka qayb qaatay gabadhaasi waa gabadh hore uga hayd Soomaaliland xildhibaan waxa ay sheegtay oo hore waraysi ay bixisay u sheegtay in Saciidani uuna waxba u ogolayn dhulbahanta iyadoo sidaa u og ayay shacabkeedii qixisay ee waayeelka lahaa ee 8 jirka lahaa ee dadka wax baranayay lahaa ee ganacsatada lahaa ayay qixisay bal waan idin kala baxaya iyadii muuqaalkeeda waa kan hadalkii Fahimo Quuje bal waynu wada dhageysan doonaa waxa ay leedahay hore ayay u sheegtay markii laascaanood shacabkeedu qaxay ayay hadalkan tiri Saciidani waa afmaani urkiisu duwan yahay marar badan baa kor u hadlay dadkaygu ma garanayaan weylaya bay wajbaysan yihiin laakiin maalin aan maanta ahayn baan arki doonaa dhulbahanta la filayo oo naga saxsan qadiyada laascaanood cadow aan Saciid Cabdilaahi Dani ahayn male waayo cid kasta hartiya oo qadiyada ka qayb qaadan lahayd oo dhaqaale gelin lahayd oo ciidan gelin lahayd oo taageeraya halka haya Saciidani oo rabaan anaga ku farqa dhigto isasiin ku farqa dhigto rabaayo dadka kulaayo wixii harti lahaa wala dadka
abiyuusaya ay wax reer dani leeyahay iyo wax qoyskiisu gaar u leeyahay ma haysto waxaan hartiba iskale qabaa'il baale qabaa'ilkii lahaa inuu u daayo aqbalo istimada ayaa laga doonay waayahay fahiime shacabkeedii bay uga qaxday in ay nabad ku naaloodaan inay nimcada Soomaaliland jaqaan oo xuduudda Soomaaliland ku jiraan Soomaaliland kama soo bixin wata ciidamada dul fadhiyaan sidoo kale dhul bahante raggii nabadda ka kiciyay waxba uma ogolo kaas ciidan waynu arkana waxa weeye fahiimay ama dhul bahanta farta dhexda ka qaniino ama farta xagga hore ka qaniinaane idinka ugu tala galay in maanta ma garanaysaa dhul bahanta sida loo galo oo ciidani soo deysaan oo tiraahdeen ma jeertay baan la dhashay ma garanaysaa heel hartiban Soomaaliland ku galana Soomaaliland wayna gumaysataa yeeydu gumaysan jiray cashuurtiina la idinka qaado magaaladiina la idinku dhisi jiray taasuna waa ayaan dar aad weyn weey saaxiibayaal muuqaalkan hadda dhamaadkii bilowgii ilaa dhamaadkii aad la joogtay muuqaalkan like saar sidoo kale si share garee say xaqiiqadu dadka u gaadho sida ay wax idinka tagayaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh